Subscribe saar si aad u hesho muuqaalkii u dambeeyay. Ha iloobin inaad furato gambaleelka. Waxa uu ka eegay daaqadda, waxay indhihiisu qabteen nin kaasoo dhaawacan, isla markiina waa uu suuxay. Soo dhawaada asxaabtayda, magacaygu waa Safaa. Waxaan idinka sheekayn doonaa qisadayda, taasoo dhab ahaantii idinka yaabin doonta. Anigu waxaan la noolahay labadayda waalid iyo walaalkii Qusay. habeenada ka mida annaga oo hurudnaa waxaanu ku kacnay albaabka gurigayaga oo loo qaraacay si aad u xoogan. Aabahay ayaa soo kacay isaga oo naxsan. Waxa uu soo qaatay midi, talow yaa noo iman doona xilligan. Waxaanu maqalnay cod nin oo leh icaawiya fadlan. Anigu waxaan galay shil gaadhi. Waxaan ka baqanayaa inuu yahay tuug ina xeeladaynaya. Ka waran haddii aad ka soo eegto daaqadda, ayaa hooyo tidhi. Aabba waxa uu degdegay dhinaca daaqadda. Waxay indhihiisu qabteen nin kaasoo dhaawacan, isla markiina waa uu suuxay. Alla waa nin dhaawacan, ayaa aabbahay ku qayliyey. Waa uu soo degdegay, ninkiina waxa uu soo geliyey gudaha. Hooyo waxay u keentay koob biyo ah. Aabbana waxa uu bilaabay inuu ka masaxo dhiigii. Sidaani waxba uma tarayso, waa inaynu u qaadnay dhakhtarka, ayaa hooyo tidhi. Waa runtaa. Aniga fikirkaygu waa u lumay markii aan arkay ninkan. Ina Mariya waa aynu wada tegaynaa dhammaanteen. Maya, anigu waan ku raaco, carruurtuna ha sii joogaan. May, inagu ma garanaynin ninkan. Laga yaabaa in la eryanayay oo guriga la soo weeraray inaga oo maqan. Waxaanu u degdegnay dhinaca isbitaalka. Markii aanu tagnay, waa la dhigay isbitaalkii. Doktoorkii ayaa imid, ninkan yaa watay. Aabba ayaa idhi aniga. Waxaanu ka qaadnay dhiig iyo baaritaano. Lacagta ku soo bixi xafiiska lacag qabashada. Haye, laakiin ka waran caafimaadkiisa. Iminka waxa uu ku jiraa indhayn. Waxaa ka muuqata baaritaanada inuu jug weyni soo gaadhay. Weli ma uu toosin. Caawa waxaan ku dayn doonaa dhakhtarka, ayaa ku yidhi aabbo. Doktoorka ayaa u soo dhawaaday, waxaana uu ku yidhi waad garan kartaa dhakhtarkan waa dhakhtar gaar loo leeyahay. Waanaad garan kartaa qiimaha ay tahay in la seexda habeen keliya. Waxaan kugula talinayaa inaad ninka geyso gurigaaga. Aabba ayaana soo eegay oo idhi ka warama arrinkaas. Hooyo ayaa tidhi waa si wanaagsan, anigu waan soo dhawaynaynaa martida. Waxa soo maray waqti yar. Ninkii waa u toosay, waxaana uu yidhi xageen joogaa, maxaase dhacay. Aabba ayaa ku yidhi waxaad gashay shil gaadhi. Yaa nahay, ayaa yidhi. Waanu yaabnay, waxaananu u wacnay doktoorkii. Markii uu yimaaday doktoorkii, waxa uu yidhi waxaa ka muuqata baaritaanada inuu jug weyni ka soo gaadhay maskaxda, taasoo sababtay inuu xusuus beelo, laakiin waa si ku meel gaadh ah. Xusuustiisu waa uu soo noqon. Aabba ayaa yidhi anagu ma garanayno ninkan, laakiin dhib ma leh, waanu soo dhawaynaynaa ilaa inta xusuustu ka soo ceshanayo ama ehelkiisu soo doonanayaan. Waxaanu keenay ninkii gurigayaga, anagoon garanayn waxaanu samayn doono. Hooyadii waxay u diyaarisay qol. Subaxii dambe waxay israacay aabbaha iyo ninkii si ay u soo heleen gaadhigiisii. Waa ay soo heleen gaadhigii isagoo afka kula jira geed. Aabba ayaa soo degay oo yidhi iminkaan ogaan doonaa cidda aad tahay. Waxa uu gaadhigii ka soo saaray waraaqihiisii, waxaana waraaqaha ka muuqatay magaciisa. Waxa uu ku yidhi eeg, magacaaga waxaa la yidhaha Maasin. Hoo, kana waa kaadhkaaga lacagta. Ninkii ayaa ku yidhi aabbo, anigu waan jeclaan lahaa inaan ku siiyo lacagtii aad igaga bixisay hudheelka, laakiin waan ka xumahay, iga raalli haw, ma xasuusto furasiraadkii. Aabba ayaa ku yidhi waa caadi, arrinkaasi dhib ma leh, anigu wax lacaga kaama dalbayo. Maxaan sameeyaa, ayaa ku yidhi. Waxa uu yidhi gaadhigaaga waxaa ka muuqata inuu yahay gaadhi qaaliya. Haddaynu xaggan kaga tagno waa la xaday. Waxaynu geynaynaa geerashka. Gaadhigii waxaa loo wareejiyey dhinaca geerashka. Maasin iyo aabbahayna waxay ku soo noqdeen gurigii. Walaalkii Qusay ayaa aabbahay ku yidhi ka waran haddaynu dhigno sawirkiisa barta Facebooka. Waa dhib male, ayaa aabbahay yidhi. Safa, kaale waxaynu dhigaynaa boggeena Facebooka. Waxaynu ugu xidhan asxaab fara badan. Haye, Safa waxay bilowday inay sawirto ninkii, waxaanay ku qortay barta Facebooka. Ciddii garata ninkan, fadlan ha nagala soo xiriidha lambarkaas. Habeenkii anagoo ku cashaynayna miiska ayaa waxaan ku yidhi Maasin ka waran haddii aad la xidhiidho booliiska. Waxa uu yidhi anigu waxaan dareemayaa dareen shisheeye, laakiin waxaan ku faraxsanahay inaan idinla joogo. Ma garan karo noloshaydii hore, laakiin ma ii ogolaan kartaan inaan idinla joogo intaan xusuustii soo noqonayso. Aabba ayaa ku yidhi adigu waxaa tahay martidayada, madaxaanad noo saaran tahay, laakiin ehelkaagu kuma warwarayaan miyaa. Maasin ayaa ku jawaabay uma malaynayo inay cidi ii warwarayso. habeenkii cashadii kadib, Maasin iyo Qusay waxay ciyaarayeen ciyaaraha fiidiyowga.
hooyo ayaa ku tidhi aabbo anigu waan ka yaabay ninkan waxaad moodaa ilmo yar oo soo lumay aniguba arrinkaa waan u fiirsaday markii aanu cashaynanay ayuu aabba ku jawaabay subaxii hore xilli hore ayaan kacay si aan ugu sameeyo qusay keega uu jecel yahay markii uu soo kacay waa u farxay ma aniga dartay ayaad u samaysay keegan haa adigaan kuu sameeyey adiguna waxaad ila diyaarin doontaa qiso cusub waynaynu wadaagi doonaa anigu waan ka helay xidhiirkiina maxaad barataan ayaa idhi waxaanu dhiganaa jaamacadda ayaa ugu jawaabay qusay mashruuc nooceeyaad isleedihiin furta markaad qalin jebisaan dabcan waxaanu isleenahay mashruuc noo gaaro furta ayaa ay ku tidhi sofii mashruuciinu ma ahaan doonaa mid la xidhiidha waxa aad barateen waa ay dhoola caddaysay safa waxaana ay ku tidhi maya waxa uu la xidhiidhi doonaa waxaanu jecelnahay oo ah qisooyinka markaad caawa soo noqotaan ma idinkala hadli karaa qisooyinka ayaa uu ku yidhi annaguna waanu ka yeelnay arrinkaa habeenkii markii aan ka soo noqonnay jaamacadda waxaanu uga sheekaynanay maasin qisooyinkayaga waa uu faraxsanaa laakiin si kadis ah waxa uu bilaabay inuu ooyo maxaa kugu dhacay walaal ma hadalkan kugu dhibnay ayaan ku yidhi maya dhab ahaantii waan ka helay qisooyinkiina lamoodo khayaali ii dhammaystir sheekada ayaa uu idhi walaalkii qusay ayaa ku yidhi kuuma dhammaystirayo ilaa aad ii sheegto waxa kugu dhacay ma hadalka fara badan ayaan kugu dhibnay maya arrinkan waxaan idiin sheegi doonaa marka aynu dhammaantiin soo wada fadhiisanno waxaan is-idhi laga yaabaa inuu soo xasuustay wax hooya ayaa in yar kadib noo yeedhay oo tidhi kaalaya waxaad cabaysaan shaah waanu soo fadhiisannay maasin waxa uu idhi waad ku mahadsantihiin si aad iigu soo dhoweyseen gurigiinna gaar ahaan adiga isagoo jeeda aabbahay aabba ayaa ku yidhi adigu waxaa tahay martidayada ilaahayna waxaan kaaga baryayaa inuu maskaxda kuu soo celiyo maasin ayaa ku yidhi dhab ahaantii aniga waa ii soo noqotay arrinkaasina waxa uu dhacay xalay markii aan idinla cashaynayey markii aan idinku yidhi aan idinla sii joogo waxaan ka helay inaan idinla qaato waqti wanaagsan laakiin waxay gaadhay xilligii aan tegi lahaa waayo ilaa weligay marti idin ahaan maayo qusay ayaa ku yidhi waa alxamdulilah haddii aad soo xasuusatay laakiin ma xasuusataa magacaagii oo dhammaystiran shaqadaadii iyo ehelkaagiiba waxa uu yidhi maasin waan xasuustaa magacaygii iyo shaqadaydii laakiin fiicnaan lahayda anigoon xasuusan ehelkaygii miyaydaan ii fiirsan aniga cidna ima soo raadsan waayo hooyaday waxay ka fikirtaa safarka aabbahayna suu lacag badan u heli lahaa gaadhiyaasha iyo dharkiisa keliya waxa uu soo xasuustaa marka uu arrin iiga baahdo laakiin dhab ahaantii anigu waan ka helay xaafadiina qusayow waayo waxay leeyihiin dhaqamo fara badan oo aan xaafadayadu lahayn sida isjacaylkii naxariistayda ka muuqata aabba ayaa ku yidhi adigu iminka laga bilaabo waxaa tahay mid naga mid a qusay ayaa ku yidhi anigu dhab ahaantii waan idinla hadlayey laakiin idinmaan sheegin ciddaan hay anigu waxaan hay maasin mulkiilaha hudheelada ugu waaweyn waanu yaabnay markaanu ogaanay xaqiiqadaas subaxii dambe waanu macasalaameynay maasin waxa uu ku yidhi qusay waxaan rajaynayaa inaad ii timaadaan adiga walaashaa markaad diyaarisaan mashruuca anigu diyaar baan u ahaa inaan idinka caawiyo aabba ayaa ku yidhi ina mari ka soo kaxayna gaadhigaagii geerashka waanu macasalaameynay maasinna waxa uu noogu ballan qaaday inuu noo iman doono